maamulka cusub ee degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag waxa si rasmi ah ugu soo dhamaaday maanta oo ay taariikhdu tahay 8 bishii 7 2021 kalfadhigoodii labaad oo soconayay muddo 10 casho ah waxaana ka warbixiyay ulajeedka kalfadhigaas gudoomiyaha degmada Ceelaf Weyn aqoon-yahan Maxamed Aadan Digaale. maanta ay taariikhdu tahay 8 bishii 7 2021 waxa halkan noogu soo xirmay kalfadhigii labaad ee golaha deegaanka degmada Ceelaf Weyn kalfadhigaas ay kaga arrinsanayeen ku naaqashayeen ajendayaasha ah samaynta guddi hoosaadiyadii golaha deegaanka samaynta xeer hoosaadka golaha deegaanka degmada Ceelaf Weyn iyo samaynta qorshihii waxqabad ee 3 bilood ee ugu horeeya duxeedka golaha deegaanka degmada Ceelaf Weyn alxamdulillah rabbil caalamiin dhamaan ajendayaashii waxay noogu qabsoomeen si habsami leh kalfadhigaasna wuxuu qaatay muddo 10 cisho ah waana noo soo gabagaboobay ajendayaashiina dhamaantood waanu ku dhamaystirnay kolintaas ayuu daayiran yahay kalfadhigayadan iyo ajendahayadani sidoo kale wuxuu gudoomiyay fariin adag u diray dhuxulaysatada deegaanada koonfurta iyo bariga degmada Ceelaf Weyn oo farabaan ku haya deegaanka iyo dhirta si ay uga waantoobaan xaalufinta iyo nabad guurka ay ku hayaan deegaanka isagoo amurahaas ka hadlayaan wuxuu yiri hal kelmo oo ku saabsan bulshada deegaanka Ceelaf Weyn waxa meelo badan laga soo sheegayaa xaalufin baan inay ku hayso dhuxulaysatadu waxaanu baaq adeer ku diraynaa odayaasha uqaasha waxgaradka gudiyada tuulada wadaadada iyo cid kasta oo bulshada kamid ah oo arinta aafada ay taabanayso in wax laga qabto arintaas in loo kaco in cidii wadana waxaan ugu baaqaynaa inay waxa ka waantoobaan waxaanu kala u baaqaynaa gawaadhida doolka ah ee ka imanaysa meelaha shishe ee dhuxusha soo doonaysa ee dhoofinaysa inay iyaguna waxaan u baaqaynaa cid kasta oo mulkiile ka ah inay naga joogsadaan oo ay naga joojiyaan xaalfinta ay nagu wadaan deegaanka ku wadaan insha Allah waxaan ka soo saari doonaa ka maamul ahaan iyo ka wasaarad ahaan go'aan adag baan ka soo saari doonaa iyo cuqaalba hadhowba yaan maxay ahaydey qaylo dhalaan iyo cabasho la dirin gacan adag iyo waxa weeyaan ayaan go'aan adag baan ka soo saari doonaa gacan birana waan ku qaban doonaa waxaanu leenahay intaan fulin leeynin ku sameeynin fadlan arintaas waxa weeyaan waa arin aad iyo aad u xun waa in laga joogsada cid kasta oo faraa kula jirtana waxaan ugu baaqaynaa inay ka waantoobaan oo deegaanka laga daayo xaalfinta gawadhida doolka ayna laga bilaabo maanta ay ka baxaan goobaha ay ku jiraan dibna aanay ugu soo noqonin haday ku soo noqdaanna waxay la kulmi doonaan awaaqibkooda iyo waxa weeyaan ganaaxooda la kulmi doonaan taasna waa baaq ku saabsan xagga arrimaha deegaanka sidoo kale bulshooyinka reer Ceelaf Weyn waxaan ugu baaqaynaa inay nala shaqeeyaan dhinaca nabadgelyada ugu horeyn nagala shaqeeyaan dhinaca deegaanka iyo xaalufka ay nagala shaqeeyaan horumarinta degmada ay nagala shaqeeyaan